kooxda kubadda cagta ee Gunners Arsenal ayaa labadii ciyaarood ee lasoo dhaafay horyaalka Premier League aanan kor u qaadin madaxa iyadoo oo labada ciyaarba ay bareejo kala kulantay kooxaha Liverpool iyo Nottingham Forest. Arsenal ayaa markaani waxay gegada Emirates Stadium ku soo dhaweynaysaa kooxda Manchester United iyadoo oo markaani islahayd bal Manchester United aad ku duushaan oo 3 dhibcood aad ka qaadataan oo hore ugu baxdaan, laakiin wax walba sidii la filayay ma aysan noqon oo Manchester United waxa ayba sameeyeenba Arsenal inay bahalashi ka rifeen, inay buubto iska wadaaye, inay dhulka ku habsato ayaa laga dhigay. Arsenal waxa ay la kulantay wax aysan filaynin, waxa aysan islahayd Manchester United waa koox aad iyo aad u jilicsan, maadaama hadda tababaro kale uu qaatayne wayna ka imaan karnaa oo dhibcaha waana ka qaadan karnaa, laakiin wax walba sidii la filayay ma aysan noqonin. ciyaarta waxa ay bilaabatay ciyaar aad iyo aad cajaa'ib ayay ku bilaabatay. ciyaaryahaankii Arsenal ah ayaa fursado helay, kadib waxaa la arkayay Bologna uu baala ka keenay ciyaaryahanka Bukayo Saka in uu markaasi shabaqa uu isku leexiyo ama own goal haba noqote oo ciyaaryahankii reer Argentina Lisandro Martinez uu lugta ku bixi islahaa ayaa u sii matay, kadibna shabaqiisa ayaa gashay. halkaas Arsenal waxa ay ku dhalisay gool iyo eber. Manchester United ayaa markaani weerar soo qaaday iyadoo markaani raadinaysay goolkii bareejaha ahaa. Arsenal waxay bilowday iyadana in ay dib u gurato oo markaani maadaama ay heshay gool in ay markaani ilaashato sidii goolkaas ay ku ilaashan lahayd, laakiin Bolonigi isku celceliska ah ee dib u celinayeen si ay u lahaayeen Manchester United soo fura ama weerar soo qaadan aad ugu martaan ayaa waxaa meeshaasi ka dhacay in qalad ku imaaday. Bologna uu baasay ciyaaryahanka Supermendi uu dhaxda ka qabsaday ciyaaryahanka reer Cameroon ee Brian Mbeumo, halkaasna uu ku dhaliyay gool cajaa'ib ah. haddaba ciyaartii waxa ay ku dhamaatay 1-1. kooxaha waxa la kala aaday qolka nasaynada ah, halkaasi ayuu tababaro walbana kooxdiisa kula soo hadlay. Manchester United ayaa waxay garoonka ku soo laabatay markaani iyadoo wicnaha wax loo soo sheegay aan garan karin, laakiinse ciyaar cajaa'ib ay soo bandhigeen. waxa ay heleen goolkii labaad waxaana u dhaliyay ciyaaryahanka reer Danishka ama Denmark ee lagu magacaabo Patrick Jogo. ciyaaryahankani ayaa Bologna aad u qurux badan oo baas ah isku dhufsadeen asaga iyo Bruno Fernandes, halkaasna uu shabaq ku hubsaday. waxaana la arkayay teembo cusub ah maadaama teembadii hore ee ahayd mid Manchester City lagu garaacay, laakiin hadda teembo cusub ayaa soo baxday oo weliba goolkeeda wadata, taasi oo ah Dorku Bruno Dorku Bruno Dorku Dorgu Fernandes Dorgu Fernandes Dorgu again Patrick Dorgu ay si u raadisay goolkii bareejada ahaa. weerar ayay soo qaadeen Arsenal, markaana waxa ay bilaabeen in ay bilaabaan balooniyaasha koroosyada ah, koornooyinka ama koroosyada inay raadiyaan si gool ay ugu raadiyeen. waayo Arsenal waayahan daba waxaa lagu yaqaanaa kooxda FC Corno ama kooxaha koornooyinka ka macaasho ayaga oo 26 jeer ku dhaliya goolal. haddaba ciyaartaasi markii ay sii socotayba gool koorna ayaa imaaday, sidaas ayayna goolkii koornada ah markii lasoo dhisay ciyaaryahanka Arsenal oo shabaqa buuxiyey ayaa gool isku celcelis ah sidaas uga dhashay, waxaana u dhaliyay ciyaaryahankan reer Isbaanishka Mikel Merino. ciyaartaasi ayaa waxa ay noqotay 2-2. haddaba Manchester United ayaa ciyaartii sii wadatay oo iyadoo ciyaar cajaa'ib ah kusii ciyaareyso soo bandhigtay, waxaana la arkayay Bologna oo u baasay ciyaaryahanka Kobe Menu, waxa uu u baasay ciyaaryahanka reer Brazil Matheus Cunha. Matheus Cunha ayaa ciyaartii hal tiiba uu jiiday, tiibada labaadna shabaqa ayaa dhex dhigay, meel aad u dheer ayuuna ka toogtay. halkaasna waxa uu ka dhaliyay gool oo fantastic ah, aad iyo aad cajaa'ib u ah. haddaba Manchester United ayaa goolkaasi la imaatay. Matheus Cunha waa uu dabaaldegay oo waxaaba la arkayaba inuu qaadayo haddaba Matheus Cunha ayaa waxa uu noqday gool aad iyo aad cajaa'ib. waxaa laga yaabaa goolkaas inuu noqdo goolkii bisha. haddaba meeshaas waxaa kusoo gabagabooday ciyaartii oo 3-2 kooxda Manchester United ayaa ku raacday Arsenal nasiib wanaag maadaama ay lahayd aduushaan
bahalihii ayaa laga rifay oo dhulka ayay yaalaan, ayaga oo niyad jabsan ayay garoonka ka baxeen. Manchester United-ne sidaas ayay guushii 3 dhibcood kusoo qaateen.